$10,000 waa u guddoon min Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahadi u sugnaatay waxaa kaloo nu mahad celinayaa ciidankii fuliyey howlgalka kuwa dhiigga bini'aadamka caadaystay halkaa yaalla ka gutay waajibaadkii ku habboonaa na waa u mahad celinayaa ayaga iyo hurintay ka tirsanaayeen iyo ururkay ka tirsanaayeen iyo guutaday ka tirsanaayeen iyo qaybtay ka tirsanaayeen iyo taliska xoogga dalka Soomaaliyeed baa u mahad celinaynaa waxaa kaloo rabaa in si dhaba loo ogaado qofku hadduu waajiba qof kastoo shaqeeya abaalmarin uu leeyahay qofkii si xun u shaqeeyaana cinqaab uu leeyahay qofkii wax fiican qabtaana birimiyu leeyahay iyo dalacaad annaga waxa aan hore u ballan qaadnay ama aan ka hadalnay may ahayn inaan qof dulminayne cadowga in la dabar jarana waa rabnay qofkii wax wanaagsan ka shaqeeya in la birimiyaareeyay ujeedadu intaasay ahayd inta faa'iido ku soo aroortay sida culimadu ay noo sheegtay aakhira janna lagu gelayaa oo diinta islaamku qabto cadow ka hara waaya oo waa shidada ummadda Soomaaliyeed dhiigooda caadaysto fayraska in la suuliyo la rabo oo kugu soo duusho meeshii ummadda Soomaaliyeed ka yimaadeen yaa garanay meel ka yimaadeen faa'iidada labaad oo saddexaad oo ku jirtaana waa in qofkii dhididay dhididkiisii la siiyo tan afraad ay ku jirtaana aniga iyo shabaab oo dagaal isla ba'anina dhaxmaray abaal baan u hayaa cid kastoo tilaabta qaad waxaan rabaa lacagtani waa laba nin ku soo ma lacagtani $10,000 waay waxa la ii sheegay ciidankani inuu ka tirsan yahay guutada shanaad ururka 39aad waxa dhinacayga taagan taliye xigeenka ururka 39aad Master Farax $10,000 waa u guddoon waxayna ka hadlaa marka